waxaa jira urur qarsoon albaabadiisana lama furo haddii aadan dhaaran. Calaamadaha gacantooda iyo hadaladooda sirta ah waxay ku dhex jiraan siyaasadda, bandhigyada iyo xitaa boqortooyooyinka. Laakiin maanta waxaan kuu keenayaa sir la sheegay in maansooniyadda ay qarniyo qarni u qarisay. Kusoo dhawaada channelkeena Sharma Sheikh. Haddii aad ugu cusub tahay, subscribe noo saar, like, share, comment. Waa dhiirigelinteena. Waxaa jira waqti dheer ka hor inta magaca maansooniyadda la maqal, Yurub qarnigii dhexe waxaa ka jiray koox rag ah oo loo yaqaano dhagax-tumayaal. Ma ahayn shaqaale caadi ah, waxay ahaayeen kuwa dhisa qalcadaha waaweyn, kaniisadaha dhaadheer iyo buuntooyinka la yaabka leh ee weli taagan maanta. Shaqadoodu waxay ahayd fartahan iyo cilmi isku jira. Waxay lahaayeen sir aan qofna ogeyn, iyo sida loo xisaabiyo xagasha saxda ah ee tiir kasta. Si ay u ilaashaan xirfadooda, waxay sameysteen golo qarsoon oo xiran, qof walbana ma geli karo. Waxaa loo baahan jiray tababar dheer iyo tijaabo adag. Waxaa jira calaamado iyo ereyo qarsoon oo kaliya xubnaha ay isu sheegaan, si uusan shaqo u helin qof aan xirfadan garan. Laakiin waxay dhiseen kaliya ma ahayn dhismayaal dhagax, waxay dhiseen nidaam urur oo leh sharaf, dhaar iyo ilaalin sir ah. Nidaamkan ayaa ahaa waxa mustaqbalka loogu yeeri doono maansooniyad. Qarnigii 16aad iyo qarnigii 17aadba, Yurub waxay gashay waqti isbedel ah. Dagaalo iyo siyaasado cusub ayaa yimid. Dhismayaashii waaweynaa iyo kaniisadaha iyo qalcadahaba way yaraadeen. Dhagax-tumayaashii iyo xirfadlayaashii waxay dareemeen in shaqadooda ay yaraatay. Si aysan ururkooda u dhimin, waxay go'aansadeen inay albaabada u furaan rag aan dhismo ka shaqeynin, laakiin xiiseeya falsafadda, cilmiga iyo siyaasadda qarsoon. Tani waxay ahayd isbedel weyn oo shaqada maansooniyadda, waxayna isu beddeshay maansooniyad fikradeed. Halkaas ayaana ku bilowday in ururka uu noqdo mid ka badan xirfad, wuxuuna noqday golo ay ku kulmaan dad doonaya aqoon, awood iyo saaxiibtinimo sir ah. Waxaa lagu diri jiray calaamado iyo astaamo sir ah, xagalka qiyaasta iyo dhagaxyada geesaha leh. Laakiin hadda waxay u taagnaayeen ma aan kaliya dhismo, waxay astaan u ahaayeen xigmadda iyo nidaamka qarsoon. Waxaa la gaaray sanadkii 1717 magaalada London. Waxaa ka dhacay kulan aan caadi ahayn. 4 urur oo maansooni ah ayaa ku heshiiyey inay sameeyaan hal golo oo waaweyn oo midaysan. Waxaa la bixiyey magaca Grand Lodge of England. Halkaas ayaa lagu dejiyey shuruucda cusub, darajooyinka qarsoon iyo nidaamka sharciga ah oo ka shaqeynaya dhammaan maansooniyadda casriga ah. Xubnaha cusub waxaa la marin jiray 3 darajo oo kala ah: heerka tababaridda iyo fahamka aasaaska, waa halka ugu horeeya; heerka labaad oo ah heerka xirfadda iyo aqoonta; heerka ugu dambeeya la oran jiray Master Mason; heerka ugu sareeya ee sirta iyo awoodda gudaha ururka. Grand Lodge wuxuu noqday xarun ka talisa maansooniyadda caalamka, isagoo faafinaya urur meelo badan oo Yurub iyo Mareykanka ah. Laakiin sida ay u korortay, sidaas la mid ah ayaan u korortay shakiga iyo eedeynta ku saabsan waxa ay dhab ahaantii ku lug leeyihiin. Intii ay maansooniyaddii faafaysay qarnigii 18aad iyo qarnigii 19aadba, waxay noqdeen mid lagu eedeeyo waxyaabo kala duwan. Qaar waxay yiraahdeen waa urur samafala oo ka shaqeeya caawinaadda iyo horumarka bulshada. Qaar kalena waxay ku tuhmeen inay yihiin xoog qarsoon oo ka dambeeya siyaasadda iyo bandhigyada iyo dagaalada dunida. Waxaa la sheegay in xiriir ay la leeyihiin ururadii hore sida Knight Templar, iyo inay hayaan sir ku saabsan asalka bini'aadamka, awoodda qarsoon iyo xitaa qorshayaasha maamulka dunida. Maansooniyadda maanta waxay leeyihiin malaayiin xubnood oo dunida ku kala nool, xarumo qarsoon iyo xalfado gudaha, kuwaas oo aan la ogoleen in dibadda la geeyo. Laakiin su'aasha taagan ayaa waxay tahay, miyay halkan ka hadlayaan urur iska caadi ah ama samafal ah, mise waxaa ka hadlaya xoog qarsoon oo haya jidka taariikhda? Jawaabta dhabta ah waxa og kaliya kuwa ku jira gudaha qolka sirta ah ee maansooniyadda. Kadib markii Grand Lodge la aasaasay sanadkii 1717, maansooniyaddu waxay bilowday inay si degdeg ah u faafto caalamka. Yurub iyo Mareykanka iyo xitaa qaar ka mid ah dalalka Afrika waxaa la dhisay xarumo maansooniyad oo cusub. Hogaamiyeyaal waaweyn sida George Washington iyo Benjamin Franklin waxay ahaayeen maansooniyad, taas oo ku dartay awoodda iyo sumcadda weyn. Ururkan waxay noqdeen meel ay ku kulmaan rag awood leh, laguna wadaago fikrado siyaasadeed, ganacsi iyo falsafad. Laakiin dad badan waxay bilaabeen inay ka shakiyaan, ma urur aqooneed oo saaxiibtinimo ahba, mise waa goob qarsoon oo ay ka taliyaan qorshayaasha aqooneed ee siyaasadda. Maansooniyaddu waxay caan ku yihiin astaamo qarsoon oo meel kasta laga arki karo,
laakiin dadka badankooda ma fahmaan micnahooda dhabta ah. Markii aan micneyno astaanta maasuuliyadda oo ah dhagaxa leh saddexda geesood oo ay ku taalo isha, aan ku bilaabno dhagaxa saddexda gees leh. Dhagaxa saddexda gees leh wuxuu astaan u yahay bilowga dhismo ama nolol cusub, halka isha ka eegaysa saddexda xagal dhexdoodana waxaa loo arkaa inay astaan u tahay eebaha ama awoodda sare ee wax walba aragta. taasina waa qalad, laakiin dadka qaar waxay ku xidhaan New World Order iyo maamulka qarsoon ee dunida. Astaamaha marka la isku daro, dharka ay qaadanayo oo madmadowga ah iyo xalfadaha gudaha lagu qabanayo aan banaanka la geey karin, waxay abuurayaan dareen ah in ururkan uu leeyahay sir ka weyn inta muuqata. qarnigii 18aad iyo qarnigii 19aadba qaar ka mid ah kaniisadihii waaweynaa, gaar ahaan kaniisadii Katoliga, waxay ku dhawaaqeen inay ka soo horjeedaan maasuuliyadda. qarnigii 21aad maasuuliyadda waxay weli leedahay malaayiin xubnood oo ku nool boqolaal dal. xarumahoodana waxaa laga arki karaa magaalooyinka waaweyn, laakiin waxa ka dhacaya gudaha qolalka sirta ah weli waa mid la hadal hayo oo aan si buuxda loo ogeyn. qaar waxay ku tilmaamaan inay yihiin urur samafala oo bulshada caawiya, tabarucaadna sameeyo, oona dhiirigeliya waxbarashada iyo akhlaaqda. qaar kalena waxay eedeeyaan inay qayb ka yihiin qorshayaalka maamulka ee dunida iyo inay gacanta ku hayaan bandhigyada warbaahinta iyo siyaasadda. intii lagu guda jiray qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad waxaa soo baxay buugaag, wargeysyo iyo khudbado laga hadlayo qarsoonta ururka maasuuliyadda. qaarna waxay ku eedeynayaan inay yihiin xooga ka dambeeya isbeddelka weyn ee dunida, maamulka bandhiga caalamka, iyo sameynta dowlad qarsoon, iyo xitaa kicinta dagaalada si loo gaaro yoolalka siyaasadeed. waxaa la sheegay in madaxda waaweyn ee dowladda, ganacsatada ugu awooda badan, iyo saraakiisha sirdoonka ay yihiin maasuuliyad. sheekooyinkaas dad badan waxay ku ridaan cabsi iyo xiiso isku jira, laakiin maasuuliyaddu waxay ku jawaabtay kuwana eedeynaya waxay ka baqaan waxa aysan weli fahmin. laakiin su-aasha weyn ayaa waxay tahay, haddii aysan jirin wax qarsoon, maxay tahay dhaarta adag oo la marayo oo aanan dibadda looga sheegin wax gudaha ka socda? in ka badan 300 oo sano kadib aasaaskii Grindelwaldka, maasuuliyaddu waa mid weli ku jirta ceegaa qarsoon. xubnaha gudahana waxay sheegaan in sirtooda ay tahay qayb ka mid ah dhaqankooda, laakiin aysan jirin wax shar leh oo qarsoon. dadka ka baxsan ururkan waxay weli ku mashquulsan yihiin waa maxay xalfadda gudaha, maxaa ku jira dukumeentiyada qarsoon oo la sheegay inay hayaan. ma runbaa in maasuuliyadda ay saameyn ku leedahay sida adduunka u shaqeeya maanta? su-aalahaas jawaabahooda waxay ku qarsan yihiin albaabadaas waaweyn oo lagu xardhay astaantoodii saddexagalka ah. albaabadaas oo kaliya lagu furayo markii aad daarato dhaar aan qofna marnaba ka noqon karin. ilaa maanta maasuuliyaddu waxay sii joogtaa halkii ay ka bilaabatay, urur isku dayaya saaxiibtinimo sir ah iyo awood iyo sheekooyin aan weli dhammaanin.